ma isku aragtaa ilka xanuun markaad cabtid ama aad cuntid waxyaabaha qabowga ah sida ice creamka iyo barafka? sidoo kale ma ku dhibtaa hawada markaad hadlaysid ama markaad neefsanaysid? kaligaa ma ahan ee waa xaalad dhacdo oo loo yaqaano tooth hypersensitivity ama saliilyada ilkaha. muuqaalkan ayaa kugu sharxaya waxyaabaha sababo iyo sida loo daweeyaba. ee soo dhawo oo ila mayso muuqaalkan. marka hore waa maxay tooth hypersensitivity ama waa maxay saliilyada ku dhacda ilkaha? saliilyada ilkaha waa xanuun gaaban oo soo gaaro ilkaha, gaar ahaan qofka markuu isticmaalo waxyaabo gooni ah, sida qofka markuu isticmaalo waxyaabo kulul ama uu isticmaalo waxyaabo qabow ah sida ice creamka iyo barafka. sidoo kale qofku wuxuu isku arki karaa saliilyada markuu hadlaayo oo hawo soo gaarto ilkihiisa. waxaan rabaa inaan isla fahanno qaabku u dhacayo saliilyada ilkaha ama wax loo yaqaan tooth hypersensitivity. sida caadiga ah ilkuhu waxay ka kooban yihiin 3 lakab. lakabka koowaad waxaa loo yaqaan enamel oo ah lakabka sare ee muuqda marka dhoola cadeynayno. lakabka labaad waxaa loo yaqaan dentin. lakabka saddexaad waa lakabka dareenka u soo gudbiyo iliga, waxaa loo yaqaan bulb. haddaba waxaa jira wax loo yaqaan dentinal tubeless oo ku jiro lakabka labaad ee loo yaqaan dentinka. dentinal tubelesska waa tubooyin yaryar sida idinka muuqda sawirka. tubooyinkaas waxaa soo maro neerfihii dareenka u keen lahaa iliga. xaaladan loo yaqaan tooth hypersensitivity ama saliilyada ilkaha waxay dhacdaa markii lakabka koowaad ee enamelka uu xoqmo ama uu dhaawac soo gaaro. lakabkaas markuu xoqmo waxaa soo muuqanayo tubelesska ama tubooyinka hadda soo sharaxnay ee loo yaqaan dentinal tubelesska. sidaas ay hawada iyo qabowga ku dhaafayaan iliga ayagoo sii marayo tubooyinka loo yaqaan dentinal tubelesska. halkaas ayuu xanuunka ka bilaabmaya. haddaba waxaa isla eegi doonaa maxaa sababo ama maxaa keeno wax loo yaqaan tooth hypersensitivity. number 1 waxyaabaha keeno tooth hypersensitivity waxaa kamid ah wax loo yaqaan gingival recession oo ah ciridkaaga inuu hoos u dhaco. ciridkaaga inuu hoos u dhaco ama wax loo yaqaan gingival recession waxyaabaha keeno aad ayuu u badan yihiin. muuqaal gooni ayaan ka sameyn doonaa. sidoo kale waxyaabaha keeno wax loo yaqaan tooth hypersensitivity waxaa kamid ah number 2 improper brushing technique oo la micno ah inaad qaab qaldan u cadeysatid ama aad isticmaashid awood markaad cadeysanaysid. sidoo kale number 3 waxaa keeni karo loss of enamel oo la micno ah in lakabka koowaad ee iliga uu xoqmo. lakabka koowaad inuu xoqmo waxyaabo badan ayaa keeni karo. waxaa kamid ah in dhaawac soo gaaro iligaaga ama aad isticmaashid cuntooyinka ay ku badan tahay acid. waxyaabaha keeni karo in lakabka koowaad ee iligaaga uu xoqmo waxaa kamid ah number 2 wax loo yaqaan bruxism oo la micno ah inaad ilkahaada isku xoqdid. sidoo kale waxaa keeni karo number 2 inaad si qaldan aad u cadeysatid ama improper brushing technique wax loo yaqaan. sidoo kale number 3 waxaa keeni karo cuntooyinka ay ku badan tahay acid sida alcohol oo kale. waxaan u gudbaynaa qaybta ugu muhiimsan muuqaalkan oo ah sidee loo daaweeyaa saliilyada ilkaha ama sidee loo daaweeyaa wax loo yaqaan tooth hypersensitivity. saliilyada ilkaha waxaa lagu daweey karaa dawada lagu cadeydo oo loo yaqaan Colgate, gaar ahaan nooc loo yaqaan sensitivity toothpaste. sensitivity toothpaste waa noocyo badan oo kamid ah noocyooyinka Colgate-ka. saddexda nooc ee shaashada idinka muuqdo waxay kamid yihiin noocyooyinka sensitivity toothpaste. sensitivity toothpaste qaabkii u shaqeyso waxa weeye waxaa ku jiro maado loo yaqaan potassium nitrate oo xiraysa tubooyinka aan hadda soo sharxay ee loo yaqaan dentinal tubelesska. sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaatid markaad ku cadeeytid dawada loo yaqaan sensitivity toothpaste inaadan ka dhaqin ilkahaaga muddo 30 daqiiqo ilaa 1 saac. sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in ilkahaada ku harto si faa'iidadeeda u dareentid. sidoo kale saliilyada ilkaha waxaa ku daweey kartaa wax loo yaqaan fluoride mouthwash oo ah dawada ilkaha lagu luqluqdo, gaar ahaan nooca ay ku jirto maadada loo yaqaan fluoride-ka. labada hab ee hadda aan soo sharxay haddii aad isbedel ku dareemi waysid waxaan kugula talin lahaa inaad la xiriirtid dhakhtarkaaga ilkaha ah. anigoo kaaga mahadcelinayo daawashadaada muuqaalkan. waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan wax uun ka faa'iiday. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like inoo saarto si asxaab badan uu u gaaro. sidoo kale aad channelka subscribe inoo saarto naguna soo biirto si aad ula socoto muuqaalo la xiriira caafimaadka ilkaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.